السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك استجوكتان ومد الصومالية waxaad leeyahay waqtigii waayaha haydii wacnaad meel kasta joogtaan galab wanaagsan maanta waxa martii hanba ila joogto anba ila falaqayn doontaa hadii Ilaahay yiraahdo arrimo badan arnaa inaan ka falaqayno gaar ahaan hooyada Soomaaliyeed oo Sweden looga qaatay ilmaha aad ayay noo xanuujisay walaasheena wariyaha qaaliga ah Anab Cabdiraxmaan soo dhaw halka nooga jeedaa wanagta official oo idin leh waqtigii waayaha haydii wacnaado waxa jirta Anabeeg hooyo Soomaaliyeed oo ilmaha laga qaatay oo Sweden joogto laba ma aha hooyooyinka Soomaaliyeed markasta waa laga qaataa oo kuwa qaarkood oo loo soo celiyo hooyo Soomaaliyeed maxaa ka dhigay dayacantii ilmaha laga daldalanayay ii sheeg baba waa tahay in amrana aad u mahadsan tahay in aad channelka igu casuunto waxa dhigi karna waxyaalo badan horta hooyada soo ka xunnahay hooyo walba oo la dhibaateeyo meel walba ay joogtona waan ka xunnahay hooyada silma laga qaatana bulshada oo dhan waxa leena inta daawanaysa si sheegareeya bulshada la sii wadaaga ha loo duceeyo ha loo gurmado ha la tusiyo taageero waxyaalo badan baa jiri kara lagu sameyn kara amrane waxyaalo inta badan hooyooyinka in ilmihii laga qaato wadankaaga marka ka tagto wadanka la tagtid wadankaaga sharci uu leeyahay waxa laga yaabaa ilmaha hadaa dishid هذا واحد بس ميسد هنا أدو ولا دشة أدو لا دشة بس وضن واحد كده الماء شرعي وضن شرعي وحي اللي هين وحيالا بدن لبهين أنا بالحسد حقوين بدن دش كلية هرت الدنيا كاس سومالي هرت ومالك استي كفافتي دون ذا سي وذا قشي مالك استي عاد دوا كفاف خفا كسينا جرته مالك استي ما شنت قار الدنيا كشاب يكون هذا سومالي لكن وحال ربع إن أخلي قالك عشته وحتى هايو وحتى هاي أب وحلو بهين المهادين هذا قاتت adduunkana waxa ka jira nidaam oo ay ku socdaan anaga Soomaaliyeed aan waa iska durdurinaa ilmihii waa dayaceena iskoolkooda ma ogaanayno dharkooda ma ogaanayno waayo qofkan uu ku soo dhaweeyay gurigiisa ku keenay qaxootiya tahay hadoo raba qarash ku siiya waayo marka waxa la rabaa inaa ixtiraamtid sharcigiisa meesha u degsan hadaa raacda wax ka halaabay male laakiin hadaa tiraad maanta meel hebel aadaya inta aadaya haddana hooyo aad tahay ilmihina laga warhaynin ciyaalka qaar xataa ayaga hooyooyinka fiyanin ku qaar ilaaha noo soo toosiyo hooyo Soomaaliyeed waan ka xumahay waxa gaaray aad iyo aad ugu xumahay waayo hooyo waa dareemi kartaa markii dhasho kaleeto midhirkeedii banaanka yaalo xanuunka yahaayo cunugiya laga qaatay naasaha ayaa daranayo حقوق آدمها حتى وإنا فيريانا جعل هاي دولة السويدن دهان هو يداس يوسع عليان المهيد أنت ناس حتى كجارسين جعل هاي ما دام دا حتى ذيك السويدن جوك طلع وسي بود بيدولة هذا دولة السويدن وحلوي قناة إن قحوتي حنانيسو الدوماتيك وكلت تسيد وكلت يونانيش كنكو دتك قاعد وكلت واركت مالي كوجينا يعني لكن هاي وحال ربع قفك صحوك ما واكرو جرو قال إن هاي الصومالي وقاته عنق وقاته وكفر جناتد لكن هاي ما نويفت دان قتيد المهم عليك استوى لقى قاعدنا يعني مركب حكوا ده أذوين هو قفك هاي بحنوك دريم أمرنا ودريم كراسة وغيرتي إن سأمرنا كذا واحد السي وحول أنت هذا وحي يسدعين بالهم إنك كيف تجنادان ها أنت سر ونوط كودعين مرة هذا وحي كودعين مرة هذا وحي كودعين مو جانك واحدة محلقة قبل كرا مرهن مرة ترى أنت فرق كشرته أو حلقة قبل كرا حل واحد شرت أتله هي ستمر هينين يحلي أتمر هي سوى تنا هذا هينين مرة إن اسكت درس صدمر والبع أوجات محاس سمين كرا محا كود ذلك محل إيجاب هي ودك يا جماعة شوكت دقن كاجو هراء إن اسكت بدله صح وين المي وحنا سيدون مال إلا قال أيادات تكتب إلا على سكترة صح وين مركا تاسع آد مهمة والشرع ودنك ودك سن أتراعد هدو ودن كان شرع دي اللي تبيه سواء وين هانشرين هدي واحد بفوزان شرين هدو ودن ماذا قارع يسدوا كلا إسكيين ودن قارع كلا ما حتى كلا جعلين وكو تركوبين لكن مال سيؤتالا لولي الله يعلم مرة بكود ذا أنت دو دب يشدك إيمان هذا هاي المرة قاتنا حنون كذا هذا يا أبيه ويبوقايان عيالك وحيلين هو يا أبو وحويس دجالان مالك كسته هو يا أبو دبا عنق مركز تمرك الواقع أو رباطك أبو حي عنق هذا هذا قال معنا يا ما عندي بعض أسكت يعني قرقة هو ماذا هاي الصاحب المها قلت الصاحب هدوء والد الميسا الصاحب قصة المصاحب قلنا ديريدين صاحب أفرجلي الحجر محك صاحبه وهم كل صاحب لكن أنا إسكيلر أصلا حتى سكول جرو كوجو عنق زمان وكروفيارا أنا والله صعد أدونك ورت بحالي أدونك ولا سل جان قالا سومال هدانا هذا وائل بحني عنق أنا وأديك هذا الشيء ده كان أيجا ويكو عاويان جرو ذا جوكته
laakiin weligay ma maqan hooyo naaskeeda da'aayo ilmo laga qaadanayo walahi taas aad iyo aad ugu xunnahay haddaan nahnay ummadda Soomaaliyeed ilaahayna waxaan ka baryayaa ilaahay ha u soo celisho isku duuban ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilintaas da'day ilinta hooyada da'day sii sheer garay walaal weligay walaal qof sheer garay ma dhihin la waxa u dhahayaa message-kan aad u muhiim ah waxaan dhahayaa hooyo adiga inta ilmaha laga qaadan adiga isfiiri hooyo inta adiga ilmaha laga qaadan ilmahaada dhaxda u xiro inta ilmaha laga qaadan adiga taxajar inta ninkaada isdagaalaysa ilmaha horteeda isku dagaalina oo taga meelaha soo kale baararka kala la tagaa hotel kala la kirista meelaha soo garaac garaac ma aha hadalka iyo dood iyo buuq iyo ilmaha kala taga waayo ilmaha hortooda wax walba xun hadii ilmaha lagu sameeyo ilmuhu waxay arkaan way ku hadaaqaan waqti waxa la sameeyay waxa la yiri ilmaha waayirku wuxuu ku sheekaysto ilmaha ku hadaaqo marka guriga wax ka dhacay cunugan in laga qariyaa fiican alors gurigiina qolkiina kaleeto balkonka kale da istaagtay xataa wax ma lagu dhahay ma saxdan ilmaha xitaa dadaan aabay hooy ilmaha u daneeya waa ilmaha waxa la rabaa xaqooda u leeyihiin marka waxaan dhihi lahaa aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga qofur raxiina Soomaali horta dhibaatada waxa uu keenay odayaasha Soomaaliyeed burburka iyo dhibaatooyinka ka dhacay waa maanta tastaan ummadda Soomaaliyeed odayaasha ay heshiiyaan oo ilaahay burcad bagooda dhex dhigo waxa laga yaabaa dadkaas anaga culayska ka hayna xataa aan ku hayno in ilaahay aan kor qaadno marka ilaahay qofur raxiin ah marka waxaan rabaa hooy inaad fikirtid la rabaa maanta wallahi billah talana baan ku sheegayna hadda looyarada ahaa lahaa amba maxkamada adduunka qayb ka fadhi lahaa gabar Soomaaliyeed hadda gaal iyo muslim tahayba hadda Soomaali waa aragtay Soomaali gaal iyo muslim inay noqdeen inta badan laakiin alxamdulillah shukr baa muslimiin aan nahnay adduunka ku faafinay waxa ka codsanaya qof kasta maanta Soomaaliya oo fiirsanayo inaa hooyadas garab ku siiso waxa la waxa tahayba waayo hooyo waa dareemi kartaa hooyo ku dhashay wiil aad tahay oo kula dhalatay gabar caanahana waa dareemi kartaa markay gurayaan oo kale wax ka qandho badan wallahi ma laha cunuga ka hor iga saqiiray waa ogaa waayo aniga qanjirada qandha ku qabanayso marka waxaan leeyahay iscaawiya biri yareebal waa maxaa iga la hadin walaalo gabar Soomaaliyeed waxa dhiban maanta qof haysta maanta adiga ku qabsan kartaa qof kale maanta qabsan kartaa waa wareegto waxaan maxaa iga la Soomaali waaye waxa waa reer hebel hadin walaal qof kasta waxay taa maanta ilaahay wajigiis inaan ogeyn waxa ugu danqanaya islaamnimada ugu danqanaya waxa ugu danqanaya Soomaalinimada waxa ugu danqanaya hooyanimada waxa ugu danqanaya ciyaalka yarka naasaas da'ay xanuunka leeyihiin oo aniga soo arkay marka waxaa la rabaa ilaahay sabr iimaan eedana hasiyo qalbigeeda la qaboojiyo dadka ka haysta dawladda Sweden waxaa leeyahay codsi anaga wadno oo xataa aan dhahayno please hala soo daayo maamada ilmaha la siiyo hadda la siiyo Soomaaliya idinka waa ka shaqeey kartiin Soomaaliya waxaa la yiri buluc quraansho aruurta buluc jiida la yiri marka waxaa rabaa in aruurtiin oo hal meel wada tagtiin oo maamadaas u hor tagtaan safaaradda ama meel kasto ay dawladda Sweden joogto oo dhahdaan hooyada naaska xataa fiiriya hooyada ilmaheeda siiya dhaha qalad dalba qof inay gelin ha laga saxiixo hooyo adigana hadda ilaahay ku soo celiyo please waa ku baryayaa waa ay fiirsan doontaa waa inay fiirsanayso waa dad Sweden joogo asxaabna jiro shishir greenay waxa ka codsanaya baraanburtay waa leeyahay maamada waa shaqaysan kartaa laakiin hooyo shaqada waxa ka muhiimsan ilmaha saqiira hayso adduunkaas aad joogtaa baraanbur xabad ku tirimaayo shalay dadka oo baraanburaysi dadka amaanaysi hooyo macaan ilmaha kaaga fiicnaan lahaa waa ilmahayga wax ii dhaaba maanta ma joogaan dunida korkeeda marka laga reebo nafteeda nafteeda wallahi bilaa ilmaha ka jeclaa xataa been inaan idin sheegin waayo hooyo ahay dhacankeyga waayo xudunteeda waaye baraanbur iyo hees maanta daa Yurub ama Mareykan meelahaas adduunkaas tago jilin iyo maxaa u aadaa hadday wax yar ii joogaan waa weyn hadday yihiin caadi waaye laakiin hadday wax yar oo mujuqyo isduugta isma qadace no irintaas ka badagaayo waxa ay ugu siiyana aan sugaa ilaahay ka sugo ilaahna meesha ku sugaya teeda kaleeto waana meel yar oo xaafadda agteeda saacadaha iskoolka jiraan soo shaqaysana waa imaanaya marka hooyo aqliga ha shaqeeyo gabar walba Soomaaliyeed adduunka meel kasta ka joogtid ilmaha lagu taxadaro ilmahana waxa rabaa inaad ka ilaalisaan wax kasto ku sheekaysan agtooda qarisan sirtiina idinka odaga idinka dhaxayso please adiga wiilkaada weyn curudka daas dagaashay xataa cunug yarka 6 jirka 7 jirka ku jooga ka qariya marka is astura ilaahay ayada asture waxa leeyahay marka waxa kala hadal ila baqiirada ay qaadeen
aadweyn walaa wax la dhihi lahaa la dhaha mala waxa la dhihi lahaa waa dhahday amranay wixii talo iyo tusaale ah iyo duco dhan walba waa u dhahnay hadda waxa dhahaynaa dhiiranaantaas in hooyo kasta meel walba ay joogto sharciga waxa muhiim ah inaad raacdid wixii hadhow lagaaga dhibkaaga imaan lahaa inaad ka taxadartid taas aan ka iska dayacan adduunka cunuga Soomaaliyeed waxa leeyahay blue oo cabay balaayo cabay qamri oo cabay waligay blue ma maqleen social media ka maqleen blue xal la horta wala yaabay teeda kale waxa leeyahay ilaahay wixii uu Allah soo hanuuniyo hooyooyinka dhibana la dhibka kor qaado inta jirra Allah caafiyo inta fiyoon Allah noo siyaadiyo ilaahayna ma aragta Soomaaliyeed nabad ha dhaxdhigo wax kala dhahayo ma leeyahay sida ay waxa idilaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalo ku baryaaya please filinkan ana ka codsanay gribka inaad ii share galaysid adigoo ah Soomaalinimo bilaadnimo hooyo aabo nimo iigu share garay kan waayo kuwii hore arki jirteen shaqo kuma laha jirin waa salaam jiro waa iska bixi jirin waayo maanta waxa joogto hooyo dararaya naaseeda caanaha sida ay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh